رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xusnulmuslimka oo adkaartii kitaabka iyo sunnada laga soo guuriyey ah. maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa qofka liraddi kaydi suu isaga celiyo dhagarta maradati shayaaiini shayaadiinta kuwooda madaxa adag. acuudu bikalimaati illaahi taamaati allatii laa yujaawizuhunna biran walaa faajiran. saasuu markaa qofku dhaha. maca daalika mar baa dhici karta markaas seexataan lagu soo cabsi gelina, ma jiifan karti, waa soo boodaysaa isla markii. marada shayaan waaye, waa shaydaankiisa madax adag, waa cibriid. mararka gobol ka mida nebigay damci jireen inay ku soo boodaan, salaada ay ka waswaasiyaan. maalin buu qabtay baa la dhahay nebiga, wuuna ceejiyey. ilan karti baa la siiyey nebigu shaydaanku ku arko. waxaan damcay buu dhahay inaan ku xidho tiiraha masaajid ka mid ah si ay ilmaha reer madiina beri ugu dheedheelaan. markaasaan soo xasuustay walaalkii nebi sulaymaan qowlkiisa, rabbi hablii mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdi. mulki isii qof kale aadan siin. waa iska dayey buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. markay saas tahay dheh acuudu bikalimaati illaahi taamaati allatii laa yujaawizuhunna barun walaa faajirun. maa yaquulu axadka wuxuu dhihi lahaa liraddi iska celinta kaydi dhagarta oo maradati shayaaiini shayaadiinta maradada waa kuwa madaxa adag ee dadka fasahaadiya keydkoodii dhagartooda. acuudu bikalimaati illaahi taamaati ayaad dhahaysaa. acuudu waxaan magan galay bikalimaati illaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaamaati ee taamka ahee dhammaystiran, allatii taasoo laa yujaawizuhunna uusan gudbaynin barun walaa faajirun. mid baajira ah iyo mid faajira labadaba min shari maa khalaqa shartii uu abuuray ayaan ka magan galay, oo wabara'a uu qalqay, oo wadara'a uu firdhiyey ama uu ku qalqay. wa min shari maa shay shartiisa yanzilu min asamaa'i samada ka soo dega. wa min shari maa shay shartiisa oo yacruju fiiha samada korkeeda aadaya. wa min shari maa dara'a fi lardi wixii arlada uu ku dhex qalqay shartooda. wa min shari maa yakhruju minha wixii ka soo baxa arlada xaggeeda sharteeda. iyo wa min shari fitani illeyli habeenka fitantiisa shartooda. iyo wannahaari sharta maalinta fitnadeeda ayaan kaa magan galay, sharta fitanta leylka iyo nahaarka. iyo wa min shari kulli taariqin mid kastoo habeen socdo ah ama guureeya, ilaa taariqan guureeya oo yatruqu bikhayrin khayr ku socda maahana yaa raxmaan allaha raxmaanka ahow. liannahu taariqa waxaa loola jeedaa wax walba oo habeenkii socda. qofku markuu guureeyo ayaa taariq la yidhaahdaa. wanajmi sida ilaah tilmaamay, waasamaa'i waataariq taariqaas xidiga lagu fasiraa. ilan habeenkiyaa la arkaa, maalintiina waa la waayaa. sidaa darteed ayuu yidhi nebiga, wa min shari kulli taariqin mid kastoo habeen socdo ahoo guureeya shartiisaan kaa magan galay. bahallada iyo dugaagga iyo inta wax dhibo badankooda habeenkii socdaan, tuugada iyo wixii markaa la mid ah. ilaa taariqan mid taariq ahoo habeen socdaa jira oo yadruqu bikhayrin khayr ku guureeyo maahana yaa raxmaan. alistikfaaru waatawbatu dembi dhaaf weydiisiga ilaahay la dembi dhaaf weydiista iyo towbada ayaan ka gelaynaa. qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, innii anigu la astakfirullaaha ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiistaa, wa atuubu ilayhi waana u towbo keenaa filyowmi maalintii aksara wax ka badan min 70 maratan 70 jeer wax ka badan ayaan u soo noqdaa ilaahay. wallaahi innii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi
maalintii dhexdeeda akthara wax ka badan min 70 maratan 70 jeer. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allaahi, ilaahay u towba keena oo u soo rujuuca, fa innii anigu atuubu fi lyawmi, maalintii waxaan towba keenaa oon rabbigay ilayhi xaggiisa u soo noqdaa 100 maratan 100 jeer. 100 mar ayaan halkii maalin aniga ilaahay dembi dhaaf weydiistaaye, idinka istikfaar weydiista oo towba la imaada oo ilaahay u soo rujuuca. yaa ayuha annaasu tuubuu ila allaahi, ilaahay u towba keenoo u soo noqda, fa innii atuubu fi lyawmi, aniga maalintii waxaan u towba keenaa ilayhi xaggiisa 100 maratan 100 mar ayaan u soo noqdaa. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, man qaala qofkii yidhaahda astakfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayhi gafara allahu lahu, ilaahay waa u dembi dhaafaa, wain kaana haba ahaada dembigiisa farra mid ka soo orday min azaxfi, maalinta gurguurashada. min azaxfi waxaa loola jeedaa waa jihaadka iyo dagaalkaba ha ka soo ordee, ilaa dembi ka weyn ma jira adigoo ciidan gaala hortaagan oo laa ilaaha ila allah difaacaaya inaad soo orodo sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. ha soo dib jeedinina ayuu yidhi ilaahay marka dagaalka lagu jiro, waman yuwallihim yowmaidin duburuhu, qofkii maalintaa duburkiisa jeediya oo gaalada ka soo orda, ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a, nin koox kale u kaalmaynaya iyo qof mataqaanaa tab dagaal ula jeeda maahane, qof kaloo soo orda waxaa ilaahay korkiisa yeelayaa jahannamo iyo qiilka ilaah subxaana wa tacaala. aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadab illah, ilaahay caradiisuu la soo noqday. idan dunuubta ugu waaweyn ayay ka mid tahay in la soo ordo maalinta dagaalka. sidaa darteed ayuu yidhi nebiga, man qaala qofkii yidhaahda astakfiru allah, ilaahay baan dembi dhaaf weydiistay allihii alcadiima weynaa, alladii allahaasoo laa ilaaha ilaa huwa, asaga maahana mid kale uusan jirin, ahuwa alxayu alqayuumu, oo nool oo haddana taagnaanshaha badan oo u qayumo inuu koonkiisa maamulo. wa atuubu ilayhi, xaggiisaan u sooba keenay, qofkii dhaha gafara allaahu lahu, ilaahay waa u dembi dhaafaa, wain kaana haba ahaada dembigiisa farra min azaxfi, mid gurguurashada iyo maalinta dagaalka ka soo orday. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, aqrabu maa yakuunu alcabdu, addoonku intuu yahay ama uu ahaanayo rabbigii, aqrabu maa inta uu yakuunu rabbu, rabbiga uu yahay, min alcabdi addoonkiisa, aqrabu maa inta uu u dhow yahay oo yakuunu rabbu min alcabdi, addoonka xaggiisa rabbi uu u dhow yahay, waa fii jawfi alleyli alaakhiri, habeenka joogkiisa dambe. ee fa in istatacta, haddaad awoodi karto addoonkii ilaahayow, an takuuna inaad ka mid ahaata miman shaksiga yadkuru allaha ilaahay xusa fii tilka asaacati, saacadda ayadaa fakun ahaw. haddiidba awood u leedahay jawfu leyl, inaad nasiib u yeelato qayb ka mida xataa inaad istaagto ilaahay aad xusto subxaana wa tacaala ahaw. yaa lagaa badsanin, waayo aqrabu maa inta uu u dhow yahay oo yakuunu uu ahaanayo dhowaanshaha alrabbu rabbiga min alcabd, addoonkiisa xaggiisa, waa fii jawfi alleyli, habeenka joogkiisa alaakhiri ee dambe, habeenka dhexdiisa dambe waayo. fa in istatacta an takuuna, haddaad awoodi karta inaad ka mid noqoto miman yadkuru allaha, dadka alla ku xusa fii tilka asaacati, saacadda ayadaa fakun ahow buu dhahay nebiga. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, aqrabu maa yakuunu alcabdu, addoonku intuu yahay min rabbihi, rabbigii intuu ugu dhow yahay dhowaanshaha, wahwa saajidun, waa marka uu sujuudsan yahay. addoonku xilliga uu rabbigiisu dhow yahay waa markuu sujuudda ku jire. fa akhiru ducaaa, ducada badiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, ducada badiya oo si fiican ducada ugu xeel dheeraada oo ku dheerdheeraada. riwaayad kale ayaa ku dartay, waxaa xaqiiqa ah in laydinka ajiibo ducadii, inuu ilaahay idinka maqlo idinka ajiibaa suuragala. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, innahu la yuqaanu, waa la daboolaa calaa qalbii, qalbigayga qaan ayaa ku dhaca buu dhahay nebiga, dembiga iyo macaasida darteed. wa innii la astakfiru allaha,
ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa fi lyawmi maalintiiba 100 maratin 100 mar 100 maraan ilaahay u soo rujuucaa subxaana wa tacaala. qaanka waxaa loola jeedaa qofka marka dembiga ay ka badato qalbigiisa dabool ayaa markaa kora. rasuulka dembigiisa kii hore iyo kii dambaba waa loo dhaafay liyakfir allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara. intaba waa lagu dhaafay, sidaa darteed waa ummadiisa la tacliimina. waxaa la rabaa rasuulkii oo dembigiisii kii hore iyo kii dambaba loo dhaafay hadduu arrintaa isu qiraayo in dadka ka soo haray min baabi awla ay noqdaan istikfaarta ay ku dadaalaan. innahu la yuqaanu calaa qalbii, qalbigayga ayaa la daboolaa oo waxaa koraya raan iyo waxyaabo kale, sidaa darteed waxaa lagu tirtiraa istikfaarta alleh. wa innii la astakfiru allaha fi lyawma, maalintii fi lyawmi waxaan dembi dhaaf weydiistaa 100 maratin. fadlu tasbiix, tasbiixda fadliga ay leedahay, wataxmiidi mahadinta fadliga ay leedahay, watahliili tawxiidaysiga fadliga uu leeyahay, iyo watakbiiri takbiirta. qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wabixamdihi fi lyawmi maalintii 100 maratin 100 mar qofkii dhahaa, xutat qataayaahu dembiyaalkiisaa la hoobiyaa, waa la qubaa oo waa la tirtiraa, walow kaanat haba ahaadaana midla zabadi albaxri, hirka badda oo kale wax la egba ha ahaadaanee dembiga ayuu ilaahay ka tirtiraa subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi qofkii dhaha subxaana allahi, ilaahay baa nasahan, wabixamdihi mahaddiisa ama mahadna asaa iskale, fi lyawmi maalintii 100 maratin qofkii dhahaa, xutat qataayaahu dunuubtiisaa la tirtiraa, walow kaanat haba ahaadaana midla zabadi albaxri, hirka badda mid la eg oo kale. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir 10 miraarin, 7 miraar ku soo celceliya, kaana wuxuu la mid yahay kaman shaksi actaqa xoreeyey 4 anfusin 4 naf oo weliba min waladi ismaaciil. dadka caadiga aan ahayn ee faci iyo ebtirsigii nebiga ah waa walad ismaaciil. ismaaciil waladiisa ka mid ah nin xoreeyey ayuu markaa la mid yahay 10 mar qofkii dhaha. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi kelimataani, 2 kelimadood ayaa jira, khafiifataan ah cala allisaani, carabka ku khafiifa, faqiilataani ku culculus fi lmiisaani, miisaanka qiyaama, xabiibataani ila araxmaani, raxmaanka xaggiisa waa ilaahaya loogu jecel badan yahay. 2 kelimood waa subxaana allahi wabixamdihi, subxaana allahi alcadiimi. 2 kelimood alla aad buu ugu jecel yahay. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi laan aquula inaan dhaho subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel yahay in lay siiyo mimaa talacat calayhi shamsu, waxay qorax u soo dhalato. maxay qorax u soo dhalataa? wixii adduunka yaallo, dahabkiisii, dhaymankiisii, doolarkiisii, dumarkiisa ah, wixii kor saaran oo dhanay qorax u soo dhalataba waxaan ka jeclahay inaan dhaho subxaana allah. ilaahayaa nusqaan ka nasahan iyo ceeb iyo walad iyo saaxiibadba. walxamdu lilaahi, ammaan iyo faalo iyo mahadna allay u sugnaatay, hadday dadku mahdiyaan iyo haddaysan mahdininba waa leeyahay. walaa ilaaha ila allah, alla asaga meehe xaqnimo lagu caabudo koonka jiraana malaha ilaa asaga maahana. wallaahu akbaru, ilaahay ayaa ka weyn wax walba. intaa inaan dhaho ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel yahay mimaa talacat calayhi shamsu. ilaan waxay qorax u soo dhalatoo dhan haddii lagu siiyo waa lagaawada adoon waxna ku raacin. subxaana allah way ku raacaysaa, walxamdu lilaahi qabrigay kula gelaysaa, walaa ilaaha ila allah waa miftaaxii jannada, wallaahu akbar ilaaha kugu jeclaanaaya. intaa ayaan ka jeclahay buu dhahay. waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika habaaban wa khayrun amala. baaqiyaadka saalixaadka subxaana allah walxamdu lilah ayaa lagu fasiraa almaalu waalbanuun ziinatu alxayaati addunya, waa nolosha adduunka ziinadooda. baaqiyaadkaasaa qofka anfacaya. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi ayacjizu macjizaya axadukum axadkiin ayagsida inuu kasbada kula yawmin maalin kasta 1000 xasanatin 1,000 xasano. fasa'alahu saa'ilun, saa'il ayaa su'aalay nebiga oo min julasaa'ihi, fadhiyayaalkiisa lamida dadkii meesha fadhiyey oo yidhi kayfa yaksibu, suu u kasbanayaa axaduna axadkiin 1000 xasanatin 1,000 xasano.
kun xasana ma sahlanee rasuulkii allow see loo kasbadaa? qaala wuxuu yidhi nebiga yusabbixu 100 tasbiixatin 100 tasbiixood ayuu tasbiixsanaa subxaana allah subxaana allah subxaana allah oo 100 ah fayuktabu lahu waxaa loo qorayaa 1000 xasanatin 1000 xasano aw yuxadu canhu ama waxaa laga hoobiyaa 1000 khatii'atin 1000 dembi ah. waman qaala qofkii dhaha subxaana allahi alcadiimi wabixamdihi gurisat lahu nakhlatun timir ayaa loogu tilaalaa fi ljannati. waa mirihii qiyaamaha uu ku cuni lahaa ayaa jannada loogu abuuraa. waa qofkii dhaha subxaana allahi alcadiimi wabixamdihi. ilaaha cadiimka ayaa nasahan mahadna asaa iskale gurisat waa loo talaalaa lahu nakhlatun fi ljanna. wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaa cabdillaahi bni qaysin, cabdullaahi bni qays waa saxaabi cajiib badan, waa ninka lagu magacaabo abi muusa alashcari. alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa kanzin kayd ama maal oo min kunuuzi ljannati jannada kunuuskeeda ka mid ah? faqultu waxaan idhi waxaan raadinayaadba ii sheegtay bala yaa rasuula allah. nacam ii sheeg rasuulkii allow. qaala wuxuu yidhi nebiga qul dheh laa xawla walaa quwata ila billaah. waayo waa kanzi oo min kunuuzi ljanna kunuusta jannada ka mid ah. laa xawla walaa quwata ila billaah kelimad sahlan ma aha. qofku hadduu badiyo khayr badan ayuu ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala. sidaa darteed ayaa maalin nin saxaabiya canugiisa la qafaashay oo gaalada wadatay. hooyadiisaa oohin kala joojin weysay. odagii rasuulkuu u yimid arrintii ayuu u sheegay. hooyadana inay xaaladeedu sidaa tahay amar ayuu yidhi sabirka ha ku dadaasha iyo wanaagga, taqwada alla ha ku socota, badiyana laa xawla walaa quwata ilaa billaah kelimata laa xawla walaa quwata ilaa billah badiya. sidiiay yeeleen kelimadiiay badiyeen. akhiiran waxaa dhacday canugii inuu albaabka soo garaacay. markii laga furayna waa wiilkoodii oo ilaa dhowr ari markaa wata waaye. say wax u jiraan baa layidhi way ii wadeen buu dhahay, lugaha iyo gacmihay iga xirxirteen, arina waa wateen. habeenkiiyo meel seexdeen, markay ka soo kaceen waaba i hilmaameen, waa iga tageen. xadhig intaa iska soo furan erigaygii soo watay. waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhrajan ayuu ilaah soo dejiyey. qofkii alla ka cabsada ciriiriga meelu uga baxu alla u sameeya. wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib meel uusan ogeenna waa laga quudiyaa. wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi axabu lkalaami kalaamidka loogu jecel yahay ilallaahi ilaahay xaggiisa afar waxyaaboodaa ilaahay jecel yahay ee samay. subxaana allahi 1 walxamdu lilaahi 2 walaa ilaaha ila allahu 3 wallaahu akbar oo 4 ah. laa yaduruka ku dhibi maysa biayihinna bada'ta kaad ka bilowdo. wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah walxamdu lilah subxaana allah dheh haddaad rabto. walxamdu lilah subxaana allah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah dheh haddaad rabto. haddii kale ka bilow alxamdu lilah walaa ilaha ila allah subxana allah ka soo noqo haddana wallaahu akbar dheh ku dhibi maysa taad ka bilowda. jaa caraabiyu nin herbaadiya u yimid ilaa rasuulillaahi rasuulku u imaaday. faqaala wuxuu yidhi callimnii kalaaman kalaam ibar aquuluhu aan dhaho. rasuulkii allah wax ibar buu yidhi. qaala wuxuu dhahay nebiga qul dheh laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi rabbi alcaalamiina laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim. qaala acraabigii wuxuu dhahay fahaulaai lirabbii waxaas ammaan ilaah waaye famaa lii ani maxaan leeyaha waaye taasi ilaahayay u sugnaatee ani maxaa ii sugnaaday. qaala wuxuu dhahay nebiga qul dheh waayahe allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf, warxamnii ii naxariisa, wahdinii ii hanuuni oo warsuqnii io arsuq. sidaa dheh buu dhahay nebiga adigana kaasaad leedahay. kaana arajul ninku wuxuu ahaa idaa aslama marka uu soo islaama callamahu nabiyu nebigu wuxuu beri jiray asalaata salaada ayuu beri jiray. uma amarahu kadib wuxuu amri jiray an yadcuwa inuu ku ducaysta bihaa'ulaa'i alkalimaati kelimadooyinkan allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii. sidaa dheh ayuu dhihi jiray allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf, warxamnii ii naxariiso, wahdinii ii hanuuni, wacaafinii ii caafi oo warsuqnii arsuq. ina afdala adducaa'i duca waxaa u fadli badan alxamdu lilah, wa afdala dikrina waxaa u fadli badan laa ilaaha ila allah. duca alxamdu lilah u fadli badan maxaa laga wadaa? alxamdulilah waa faatixada loola jeedaa. ina afdala adducaa'i
duca midda u fadli badan alxamdu lilaahi waaye faatixada waxay leedahay fadaa'il aad iyo aad u badan. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi waan kala goosanay faatixada ani iyo addoonkayga, qayb anaa iskale, qayb asaa iskale, qaybna way noo dhaxaysaa buu yidhi ilaahay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin hadduu dhaho addoonka intaan anaa iskale buu leeyahay ilaah subxaana wa tacaala. iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin hadduu dhaho tan way noo dhaxaysaa buu leeyahay ilaah subxaana wa tacaala. addoonkayga wuxuu qiray ani ma ahee inuusan axad kale caabudaynin, ani ma ahee qof kale inuusan kaalmo weydiisanaynin. ihdina asiraata almustaqiim ilaa ay ka dhammaato addoonka iskale buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waayo waxaad leedahay ilaahayow jidka mustaqiimka igu hanuuni, siraata aladiina ancamta calayhim kuwa aad korkooda u nimcaysay jidkooda igu hanuuni, kuwaasoo nebiyaasha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta ah. ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غayr almaqduubi calayhim waa yuhuuda waladdaaliin waa nasaara, kuwii dhumay iyo kuwii baadiyoobay labadaba. غayr almaqduub waa kuwii loo carooday, yuhuudda waa qof kastoo inta cilmi barta ku camalfali waaye sida yahuudoo kale. waladdaaliin waa nasaara, qof yidhaahda cilmi ma aqaan ilaahana caabuda godow ku dhaca, yaa ku yidhi adoon wax aqoonin ilaahay caabud. sidaa darteed waa daal, kuwaa jidkooda ma rabna waay. marka alxamdu lilah baa u fadli badan, waa afdala dikri laa ilaaha ila allah. iimaanka dhowr iyo 70 qaybood waaye laa ilaaha ila allaha ugu saraysa buu dhahay nebiga. jidka oo dhibka waxa dadka dhiba in laga qaadaa u yar, sariigtuna waa qayb iimaanka ka mid ah. albaaqiyaatu asaalixaatu, baaqiyaadka saalixaadkaa suuratu kahf ay tilmaantay waa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah. kayfa kaana, sidee buu ahaan jiray annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam yusabixu mid u tasbiixsadaa. nebiga see u tasbiixsan jiray? tusbax muu qabi jiray mase waxyaabo kaluu ku tasbiixsanaya? can cabdillaahi bni camri radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya, nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam yacqidu atasbiixa, tasbiixda ku gunudaya biyamiinihi, gacantiisa midigta ah. farahu saasuu laabaa, subxaana allah subxaana allah, caqdiyuu samayna. gacanta bidixda ah ma aha, gacanta midigtaa lagu tasbiixsadaa. ra'aytu nabiya yacqidu tasbiixa biyamiinihi, midigtiisa ayuu ku tasbiixsan jiray, weligiis tusbax ma qaadanin. tusbaxa waa wadanaa dhammaanteen diinsa ma aha. qofka inuu gacantiisa ku tasbiixsadaa fadli iyo wanaag iyo qiimo badan. islaam buu u soo galay nebiga xaaskiisa ah, sidaa darteed subaxdii buu ka tegey markii salaada la tukaday, wuu u soo noqday ayadoo weli salligeeda fadhisa. maca daalika ayuu yidhi maxaa dhacay, kama suulin miya inaad ka xisbanayso? maca daalika dhowr nawa ama laftimireed badan oo meesha buuxa ayay haysatay, mar kastay tasbiixsato subxaana allahi dhahday dhinacu dhigaysay. arrintan wax kaaga fadli badan maku baraabuu dhahay sala allahu calayhi wasalam. kelimadooyin ayuu markaa baray duca ah. marka saasaa loo tilmaamaa ama shayga fadliga badan qofka inuu gacantiisa markaa ku tasbiixsado say qiyaamaha ugu markhaati kacdo. ra'aytu nabiya yacqidu tasbiixa, waa la gunudaa marka la tasbiixsado, farta uu laabi jiray nebiga. biyamiinihi, gacantiisa midigtaa, min anwaaci alkhayri wa aadaabi jaamicati, noocyaal khayrka ka mid ah iyo aadaab jaamica, waxyaabo aadaab ahoo kulan oo laysaga baahanya in la sameeyo. idaa kaana haddii la gaaro buu dhahay nebiga junxu leyli, habeenka junxigiisa, habeenka mugdigiisa ama gobol ka mida, aw amsaytum ama aad galabaysataan oo qoraxdu ay dhacdaan loola jeedaa, fakufuu celiya oo guryaha ku celiya sibyaanakum ilmihiina, ilmaha yaryarkaa guriga ha lagu celiyo. fa ina ashayaaiina, shayaadiintu tantashiru way faafaan xiina idin wakhtigaasi. waxaa la diidayaa inay dhib gaarsiiyaan ama ay dardaraan ilmihii. inta badan maqribka waxaa fiican ilmaha inaan bannaanka loo ogolaanin. fa idaa dahaba, hadduu baxo saacatun saacad oo min alleyli habeenkii ka midoo ceshihii oo kale la gaaro, fakhalluuhum iska sii daaya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. maqribka ayay shayaadiintu faafaani, saacad ka mida habeenkii hadduu horay u baxo deeya oo fura, bannaankooda ha aadaana. wa agliqu labwaaba, irdaha xirta, wadkur isma allah, ilaahay magaciisa ku xiran oo ku xusa markaad albaabaha xiraysaan. fa ina ashayطaana, shayطaanku laa yaftaxu ma fura baaban muqlaqan, albaab xiran mid furana kama taga waayo.
وأوكوا قربكم قربيالكينا دبولا وأوكوا هروبة أما دبولا قربكم قربيالكينا قربها وحلو لجدا وصبرارضا دي ويلش بيها اللقعب واذكر اسم الله إلهي مقعيالكيسا كحسا وخمروا دبولا واسكو معنى آنيتكم ويلشين وحلقعنوا واذكر اسم الله إلهي مقعيسا كحسا قلاس كاتوعانا كجر بيا كجر ويلشو هدي حنك كهران كلها لدبولا وهديك للشيطان كوافيدا رواية كلمة عذراء أي هبينكي سودك ويلش فرنا ويقلان كما تقولنا نلعب المران ولو أن تعرضوا إن قد ضبطان عليها كركنا الشيء شيبها هذه وحكى الله قد ولا حتى هدي لوايو انت يطمئ السوق على أمقارك الضبط وبسم الله ده بسم الله الرعسيسة كلي حتى صار تمد بولايو هذه قاري كلي أبهش صاصة وقضب بيسا بسم الله حتى تهضو وحين لم ينتهي أيضا أضب وشيوه وأطفئوا دمية مصابيحكم في دسيالكين مصباحيالكن الدمية أيو أهي نبي صلى الله عليه وسلم مصباح أي قاس بطهي بيتهن إلى رواية كلبا وحي كعلي سيدوليغا إنو قريغا كهر يا مصباحنا قري أيا قبتي وقتي نبيغا مقالة مدينو إهل كيسا أيو كبتي رسولك الله شاقي مركاسو يري دبكو وعدو اسكدمي مركاس سيحاني سامبو الله صلى الله عليه وسلم حرا أبو مبوينك dabka waxyaabaha keena oo kale iyo oo dhan korontada iyo nalka mashaakil male culimada gobol ayaa tiri ayaga laftagooda in la damiyo ayaa fiican ama haddii sidooda loo dhaafaa dhib maloo dooriga waxyaaba uu ku horiyo markaa ka mid ma aha waadfi'uu damiya masaabiixakum misbaxyaalkiina wasala allahu إلهي هون حريصته والسلام الله نبذليه وبارك الله بركيه على نبينا نبينا محمد وعلى آله أهل كيسي وأصحابه أصحاب كيسي أجمعين ضمان طبماشا وحن نقول ماذا كتابك حسن المسلم أذكرت كتابك السنة وحن كصبرنا تعليم آدي أتقي مبنا أوي وفقدور رب الفيس ينوقل شيطانك أكبت بادا عيو مناس أكبت بادا إبك بني آدم كان شياطين طوئنو كتابك برطاقنا نقما أما جاب قوة أو مروال بأو أخيا وحي أذكار أو ماشا مركا قصدا في ولاقي خير مركا لوغار جنيا ما انتبطي قفك استاواشي مستشى لسكسور راعي مع ذلك سانتي وي gabdhihii way wada waasheen wax fiyow ayaan jirin qur-aanka allah u akhrina wax lagu caafimaadayo male sababta waxay tahay dadkii oo ka tegay dikrigii ilaa subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaan ka baryanaa inuu xaqana waafajiyo wax kastoo aan gasnay oo sidii loogu talagalay aan u sheegin nafteena iyo shaytaan bay ka ahaatay ilaahayna beri buu ka yahay subxaanahu wa tacaala waxaana weydiisanaynaa inuu naga cafiyo xagga akhrintiisa tafsiirkiisa iyo sida ay tahayba waxaan asiibnay oo sidii loogu talagalay aan u sheegnay ma aha caqligeenna garaadkeena iyo cilmigeenna balse waa tawfiiq iyo waafajin ilaah subxaanahu wa tacaala waxaana ka baryaynaa ilaahay baa ku mahadsane inuu tawaabteedii ajirkeeda na siiyo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala